shirkan jaraa'id uu qabtay Generaal Saciid Cawil Jaamac Carre ayuu wuxuu kaga warbixiyay toddobaadkan kormeer uu ku tagay tuulooyin badan oo hoos yimaada gobolka Sanaag waxaana uu sheegay in xaaladda nololeed iyo biyo la'aaneed iyo cunto yari ay si weyn uga jirto deegaanka waxaana uu baaq u diray hay'adaha qaramada midoobay markan ka waramo howlgalkii maalintii dhowaad gobolka Sanaag wuxuu daarnay inuu u kuurgalo xaaladda deegaanada waxaan soo kormeeray 12 degmo oo ku hareeraysan ama tuulooyin oo ku hareeraysan gobolka Sanaag lahan kormeeray waxay ahaayeen waxaan ka soo bilaabay Riiga Urbogasheed degmada Dararweyne dib baan haddana u soo noqday Sarmaayo Xangarool Dawaco magaalada la yiraahdo Daar Salaam Shimbiraale Biyo Guduud Doob Tiidari kulmiye iyo yubbe intaasan soo maray intaasba waxa ka jirtay xaalad abaareed iyo cabrun intaaba waxa ka jirtay xaalad abaareed iyo cabrun iyo ciidan yar iska dul fadhiyo ku baabay isaga laftiisu meesha dhammaan hay'adaha qaramada midoobay kuwa maxalliga iyo kuwa dawliga waxaan ugu baaqayaa dadka in si degdeg ah cunto iyo biyo loo soo gaaro ee gobolka Sanaag markaanu kulanay odayaasha deegaanka iyo waxgaradka waxay u muuqatay meel aan dawladda ka jirin anigoo metelaya jabhadda sinaanta iyo cad maanta ku sugan Qardho dadkaasi inuu baahan yahay in wax lala qabto annaguna italkayo wixii aanu qaban karno baan qabanayna uma naan tagin inaanu daqalno dhulka yagiibu waxa kormeer baan ku sameeyay waana ku sameyn doonaa mar kasta waxa noo haray dhinaca buuraleyda iyo xeebaha maxaan ku leeyahay galbeedkeeda waqooyiga iyo bariga waan soo maray 12 tuulo wadayaashoodii waan soo aragnay waxna waan isla qaadanay maadaama aan cid annaga noolaan taaba jirin dhinaca kale Saciid Cawil Jaamac Carre hogaamiyaha jabhadda dulmidiidka Somaliland ayaa eedeymo kulul u soo jeediyay mar kaleeto maamulka Somaliland kuwa ka hadlaya Hargeysa ee maleegaya dagaalka waxaan uga digayaa waa la ogyahay hawd waxa laga wado imika iyo meel degmada daroor waxa laga wado in la soo cesho wixii hore ka digtoonaada leh waxa ka dhici doona qof waliba inuu qof cuno hadii aka waan toobi weydaan waxa waayo sababtoo ah ninka qabri bayax u dhashay maanta ee xukuma doonaya inuu xukumo ma xukumo wixii xukuma gabilay only xukuma boormaan xukumin سيلع بانو حكومين هرجيسة بريجيدان حكومين هوتكيدان حكومين بربران حكومين برعان حكومين واي صوبتو والله قال كلها وحن كوكب دونا شغل رسمي عن كوكب دونا ومدنا وحن شغل دقن قبل ده إن أي دبعات ده ترتاح أي تهاي دولة لا أنت إن يفهمان للكود يدت كود وسوتشستان جيت تورا سرواب كيس كده أيان cid kastana waxaan u sheego digaya oo xabad nagu soo ridaana waxba ku rismayno ciidamada qaranka ay ku sheegaan maaha ciidan qaran waa laga arkaa laascaanood waxa ka dhacay baa loogiya geerida iyo dhaawacba waa loo sinan lahaa haday ciidan qaran yihiin family qura ku dhimanaya oo ku dhaawacmaya waa loogiya ciidankii qaranku halku jooga waad arkaysaa maalin walba waa taaqoriga BKM kale la soo hadaafayo ee jabhadda loola soo galayo dhashikayaashuna way iman doonaan hadii Allah yiraahdo Xiidiin Hiirad Kaatun telefishinka Somali News magaalada Qardho